السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بأصحابتك كحرنا أحمد يره كسر دواء مانت محن حلا كده كسر قد بدونا شيء كأد وحيس بدن وحكمة بدن كلها هنتاي فضلا وحن كاعد سنة ناس بسكريبت يسارتو شايف ما يصير هذا أدور عليه كل كهدون بيهبونتها يعني dhageystayaal idin soo gudbiyo sheeko xiriiradii Maroodiga iyo Atoorka oo kooban anigoo ku xijin doona geeraarkii uu Faarax Xuseen sheekada ku xusay waxa la yiri waxa jiri ceel biyo badan oo markay oonto ay duurjoogta oo idin u soo aroori jirtay kana cabbi jirtay wuxuu ahaa ceel ay u sinaayeen dhammaan duurjoogta kuweeda ugu waaweyn sida Maroodiga libaaxa iyo wiisha iyo kuweeda ugu tabarta daran sida sagaarada shimbiraha iyo bakaylaha maalintii dambe xilli ay jiilaal kulul tahay ayaa waxa ceelkii u soo aroortay sagaaro oo Atoorkii boqorka u ahaa oo hor socdo markay biyihii cabtay dhowr jeerna ay ku rakaadatay ayay u harsi doonatay agagaarka ceelka geedgaabkii ku yeel dabadeed Atoorkii oo calooshii buuxsaday ayay mar qura wax ku soo dhaceen tobaneeyo sagaar isaga oo hogaaminaya ayuu ceelkii dib ugu noqday oo inta ciid iyo dhoobo ka buuxiyay haddana oodafo weynaatay afka ka saar soo kibir baa taabtay wuxuu ku tashaday maalintaas kadib duurjoog dambe inaysan kaba cabin ceelka muddo gaaban kadibna waxa ay soo dhigay Maroodi iyo wiil oo bastood la ah oo inta kalkoodii soo galay aroor ah kaalinkii ceelka markay u soo dhawaadeen waxa u muuqday wax aanay filayn waxay indhaha ku dhufteen ceelkii oo ood afka laga saaray iyo Atoorkii oo dul fadhiya markaas bay yaab u go'een hase ahaatee cidda falka ku kacday inay Atoorka tahay markay ogaadeen kumay soo boodeen way u miiriyeen Maroodigii ayaa ku yiri wariya Atoorow qorraxeed xun baanu ku jirnaa oo waanu la leedanay hana oomin ceelka aad ciidda ka buuxisay anaga qodaynee geedka iska harso hadhowna wax biyihiisa afka saara adigu ugu horree hadalka qabowse Atoorkii rabbi wax ugama dhigin hadiiba taladii loo soo jeediyay uu ku gacan sayray markaas uu isaga oo yasaaya Maroodigii ku yiri ceelka cid ka cabaysa ma jirtee calaacalka inteedun iska deysaan xoog iyo itaal kaga cabba hadii kale sawaxanka igala kortaga Maroodigii baa kolkaa isaga oo aan dheerfin wuxuu isku dayay inuu Atoorka si walba ugu aqli celiyo wuxuu u faahfaahiyay ayo xumida kibirka iyo guuldarrada galdarrada laga dhaxlo wuxuu xusuusiyay in ceelka loo siman yahay aanu ahayn mid uu isagu gacnihiisa ku qotay ama uu aabihii uga haray haddana wuxuu u sheegay in eebbaweyne mooyee ciddii kaleba kibirka ay ku hoogto oo ku baado iyo in isaga iyo iyaga aan wax eed ahay u horreynin dhinaca kale wuxuu ugu caqli celiyay isaga Maroodiga iyo wiilku mar hadday ceelka ka cabaan inay muddo dheer ku qadaan kana maqnaadaan halka uu Atoorku yahay midka qaraar walba iska ag jooga ee ka waraaba sidaa darteedna ay ku haboon tahay iyada dad ugu jirtay intuu xagga nabadda u xagliyo inuu iyagana ceelka meela uga ogolaado ugu dambeystii wuxuu ku xabsi galiyay isaga iyo wiilku inay uunka eebbe ugu xoog badan yihiin taana uu ku ogaan karo geedaha quracda ah ee intay jirta siibeen ay iyagu dhulka soo dhigeen Atoorkuna uu indhihiisa ku arki karo hase ahaatee waxaas oo waanaya waxa oo tusaale ah Atoorkii wax yarna kama bedelin waxaana la abankacay geed nagaarka jilabka lagu magacaabo markii uu geesihiisa yaraa dhowr jeer ku hirdiyay talaxumadiisa waxay ka ahayd dhoolatus uu awoodiisa ku muujinayo bahalada waaweyn ee meesha taaganna uu ku bajinayo dabadeed jawaab kale sidii looga sugayay waatuu Atoorkii ku xira dalaaqay iyaga oo ooman inay oonkooda la fulaan haddii kale dirir la isku baabaa ay goobta ka dhici doonto Maroodigii oo xira dalaaqaas ka hor aan caroon ayaa mugga camal gohaadooday ciilna la madax wareeray mar kaliya ayuu go'aansaday inuu Atoorka nafta weysiiyo sidaasna kibirkiisa ay doqonnimadu u heliso uu ku eedsiiyo markaas buu jeeyihiisii balbalaara iyo foolkiisii xoogga badnaa intuu kala faanay ku dul saarooday oo fud weyn madaxa kaga bashaaqay halkaasoo isla markiiba uu Atoorkii ku baqtiyay dabadeed markii sidaas awoogood loo dilay ayay meel ay joogtayba sagaaro oo idile kulan isugu timi waxay ku tashatay inay Maroodi disho walibana ay u disho isla habkii uu isagu wax u dilay sidaasna ay ugu aarto Atoorkii ay ka soo fireen
maalintaas bay sagaara ku heshiisay tu waliba inay meel qurasaaladeeda ku ururiso si kolka dambe markay isku biiriyaan ay u noqoto wax la egtii maroodigu uu abkood ku aynabay. siday haddaba sheeko xariiradu leedahay maroodi godobta kaga maqan iyo tashigii ay isku dhaarsatay ayaa sagaaro ugu wacan saara ururinta joogtada ah ee ilaa maanta ay ku howlan tahay. si kastaba ha ahaatee faarax xuseen oo sidaan soo sheegay u dan lahaa gabyaagii la oran jiray maxamuud muuse ayaa sheeko xariiradan geeraar dheer u rogay. waxaynu ka soo qaadanaynaa qaybihiisa ugu horeeya ee sheeko xariirada hoseeya. wuxuu yidhi war allaahu akbarey ilaahba amar weyn aadni waaba laciif islaamkii awalkiisu shahaadada weeye aayaddii nebigeenna akhriskeeda horeeto bisinkaan aftognaa gabaygana ildihiisa arar baa la yidhaah aqiliin hadalkeedana mahmaah bay ku idlaysay oo tanaan noola ekoon. war allaahu akbarey atoor guuyo sagaariyo aw bariis wiileed iyo maroodaa is-ilaaqayoo aroor bay ku kulmeen abtadii dulmigeedana atoor baa u lahaayoo ceelkiibuu asaruuray. aw maroodi ku laab atoorow hana oomin amminkan aynu joogno amnac baa la yidhaah annana haatan nafteenna asqaan meesha la naal ceelkanaad asaruurtay bal intaan ka qodayno aayar geedka fadhiiso amminkaan ka idlayno ilihiisa bannayno annagoon afka saarin bal uurkaaga ka buuxso. atoorkii ku jawaab maroodow orka daah afku yuusan ku daalin ceelka waa laga oomi anigaa asaruuray oodtiid baan ka qabaa ama oonka la luuda ama oohinta daaya oo addimowla imaada. waa akhyaar camalkeedii aw maroodi ku laab atoorow abtigeenow aabil layskuma maago ilma maahid carruura eedinooma horreynin idifleyda sagaarana adigaa u amiira ceelkaad ooda kor saartay adoogaa ma lahayn addinkaa kuma faagin wax ilaah aan ahayna amar waa ku lumaan annana eeqa ma fiicnee ijaabaanu rabna. mar haddaan afka saarno omas baan u fullaa ayaamaan ku qadnaa adiga iska ag joogay amin doonta waraabo ayaantii aan nimaadno miiro noo ogolow. intii eebbahay uumay wiilkaani ag joogiyo anigow addin weyn quracdaan alkaxaynay waatan ceelka ag taalla indhahaaga hortoodana adba waad aragtaa. war allaahu akbarey waa wax mawd ka adeegaya inkiryo kama yeelinoo qusla ah qaba diidiyoo jillab geeska la aadiyo inaad oon la fushaan ama laysku idlaan buu araddii ku dalaaqay. war allaahu akbarey waa ninkii aad ogayda iliguu kala faanayoo diguu oobta ka saarayoo oo turaabtaa kula aasay atoor guuyo sagaarana araggiisba lawaa. al'aankaas aynu joogno aan maroodi asiibniyo awowgeyn aan u aaray ab sagaara qabtaayoo waa tanhiisha uruurin aqiliin hadalkeedana mahmaah bay ku idlaysay oo tanaa noola ekoon.